محايا الرسول كان عليه السلام حديث صحيح مسلم وابو هريره وريه من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره ورسولك عليه الصلاة والسلام وهو متفق عليه قفك واقو أبريه أصدقوا نفتيس آمن ونفتيس وحوق بقى سنجري هذا من أصبح منه في سربه داس في قومه نوال وفسره ومدى أو دحجوغ أمن كل نول ومدى أن دحجوغ تداد أمن كويسي سو مدى إناد عرفت أور ميلو البقادو سو مدى كينتا ماها لكن مركي أي أمن أدكول النوشاي هذا وحوية قومك هذا دهت أيوكو بقايسو جيركاغ النبضو كوقبا هاي لهدين أمن جيركاغ يا لباتو بيا معافا في بدنه ورسولك على بدن كيسنا له عافية وحوية بدنك caafimaadkiisa asaga laftiisa uu ku xiran yahay inuu amni helo qof baanta amni aanan haysan ee khoof oo haayo ma caafimaad qabo waa iska caafimaad qabnaha iska leena waa iska socona ma caafimaad qabno maxaa yeela naska quraanka iyo aayad oo naska quraanka iyo xadiiska nabi kaleey salaam ayaa waxay cadeynayaan inaanan caafimaad qabin Soomaali ma caafimaad qabto qofkaas waa fayow waa iska caafimaad qaba saas وهذا إلهي سبحانه تفاؤل واي ما عافماد قبو أدو أرداي هذا ذات تراد مانت أدو أردايو سكة ساعة عافماد ما قبو مركا ترادي كدين بابي ميس ملو كدين بابي والله به مايو ورقف كان نعمة إلهي وقد يراي معو بحيث سوى عافماد لا يمولي لما دهايو علشان عبس خوف وقبا خوف هذا ماشي خوف وقا خوف ميلو وقا قهرو كمان هاري كراي because وحواي هذا adiga waad noosha meesha meel baa timiday amni oo ka jiro cabsi waa ku haysaa wada ahalkaagi amba awlaadaadi baa meeshi cabsido ka jirta amba waalidka ha jira amba walaalaha ha jira amba zawjada ahladaadi ya jira ayagi baad u baqaysaa marka taadi waxba tari mayso mu'aafan fi badanihi عنده قوت يومي مركز قوت اليومك iska haysta قوت اليومك waxa way wax maal badan oo meel ugu kaydsaday laga waramaayay maalintii uu hadoo baxo waxa ku noolaado heli kara مثلا بهذا باب الفقه hadii la joogo kala aadi mayne qofka marka مثلا ba naagta lagu xiri karo oo markaas uusan mucsir la dhehaynin 24 oo soo socda walaxu nafaqeeyo naagtana dii lagu xiro oo si hada waysto qofkaas waxa way markaas mucsir markaas maan naagta waa lagu xiri kara laakiin hada uusan haysan lagu ma xiri karo sababtoo amaano la yaca ka baadi ilaahi subhanahu wa ta'ala baabu ris ilaahi yaa arzuqay laakiin saacadaas la joogo waa xaaliga waa inuu markaas uu heli karo عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافير ورسولك عليه الصلاة والسلام رسول كان رسول مال رسول الدنيا رسول حوله iyo maal lagu madaba jooga khayr khalq illah waxa uu adduunyo ku falay ma jirin maalkana waxa weeye qashinkaas uu gaga liita meesha yaalo oo laga taltallaabsanayo jidkaas yaala ayuu gaga liita maalna sharaf gooniya ma aha bacdo sharaf waa iska yahay hatta wad aragteeno maxaasinu zawj markii la tirinayo marsala zawjada saalixada iyo ninka saalixa maxaasinta markii laga hadlaayo oo fuqahadu ay ka hadlayaan mesela aimadi waa inay salafu saalihan sheegayna aimada ahlul madhabka imaam ahmed bis mooyaane inta kale maalku inuu maxaasinu zawj uu kamid yahay ma qabaan ayaga ee diinta iyo sharafta iyo daacada ilaahay waxyaabahaas ay fiiriyaan ما مال ما في رايا حديث كان إمام أحمد وقاطي المال الحصب سند كيسا وحكو جرا مركا أو مسند كيسا نكويا له مركا إمام أبو حنيفة وحبك مسوق هذا مال وحبك مسوق هذا إمام مالك وحبك مسوق هذا عالم المدينة إمام الشافعي وحبك مسوق هذا إمام أحمد نه وإمام وين وهذا إمام أحمد قلدان لما ديه قفكي ترانا وادين بودي oo ay culimada hadii qofkii nabi qofkii ay iska badaayay culimada laftirkeeda oo la caayo ayadoo markaasi
waxa ilaahay oo ku furayo cilmiga iyo diinta loo caayayo fahada kufrun way gaalnimo way taas waana culimadu isku waafaqsanta sababtoo ah qofka shakhsigiisa ma ahaday ee wixii ilaahay bima awdacahu Allahu alayhi waxa soo wax ka sheego haya qofkan taasna waxay u laabanaysaa ilaahay u noqonaysaa Allah u laabanaysaa subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa u laabaysaa taas marka dhibaato waa weyn waaye balse hadda dhankaas daarin sii aadin waxa weeye markaasi qofka intaas markuu helo waa uu fiira xadiiskaas waa u laaba doona aayada asagoo laftigiisu aayada tafsiirkeedu ka mid yahay marka man asbaha aaminan fi sibhi ko rasuulka kaleey sallallahu amniga ka bilaabo aaminan oo dhahay markii amniga la helo kabaadi aad caafimaad heli kartaa idoo amni jiro aniga waa caafimaad qaba inaad tiraahdo laga rabo waa sax hadaa idoo amni jiro caafimaad ma qaba tiraahdo caafimaad qaba dambiilaata markaas waxa marka ka bilaabay rasuulku kaleey sallallahu aayadan kale suuratu nahl ku jirtana wadaraba Allahu masalan qaryatan كانت آمنة نوضة إلهي كبعد يوم مطمئنة نوضة يأتي حديثك سي آيات اسكم معنا واي انت حديثك آيات الشيء سي حديثك من الشيء واسكم مد مركة محايا لمركة أمني النفط هذا أضوها شو آيات عافمات هلي كرتا إلا أجلوا باقا ميسو أمراشنا وحي كمتاي عوارش إنسان ككتم هذا كمتاي أو إذا لقى باقا ما لكن ما علمت أنجرها كهينين أو عذر كهينين waxaad noqonaysaa qof caafimaad qabo caafimaadkiisa ku faraxsan oo sharaf caafimaad si sharaf leh oo caafimaad qabo noqonaysaa markii caafimaad la helo ayaa noloshu ayaa hadana waxay wax ku taraysaa waxaad haysato qofka waad aragtay qofan maanta maal kasoo leeyahay laakiin waa cudur ahaay diabetes waaye cudur badan oo qaba asaas oo badan cuntada ma cuni kariyo wixii macaanka meesha yiilay dhibaato haysato cuntadii waaba ka soo laabatay هذا مركب محوك ترى حيكو ترى يسانوش حيكو ترى مالك وعن إلى مالك حوك ترى مركب نبي عليه الصلاة والسلام ولا معافى في بدني عنده كبعد وعنده قوت يوم يوضح مركب لبلاس درجة أو هايسته أما لبلاس حال أو كنت أجيه أيا وحاتم إذا نلش إنه وحطرته ومركب سورة رسولك عليه الصلاة والسلام عنده قوت يوم يوضح لكن وحوي هدان لمداس ان لا سو مري او كو امنيغي كو كيه او عافمادك او كخيغو ما لا هيسو waxba taray ma jirto hada waxaan noo soo baxaysa maalkan haysan inaan aakhiro waa taraba laakiin tii dhabtaaheed ma ahan inaan waxayna aakhiro u niyeysan oo maarata wixii waajibaadka ahayo nala saarahay waa la ka rabaa iyaga waa salaadan mini amni darajirto min wax ka sajirto iyadoo dagaalka iltixaamul harb lagu jiro seefta iyo warmaha la isku haayo gaalada ayaa in la dukada la iska rabaa oo salaada idu meel ku hari mayso waajibaadka waa la iska rabaa wixii oo dhacaya ayaad waxna bixinaysaa laakiin waxa weeye wax nolol oo sharaf lama jirto hadda waxaana la dhihi karaa dadkeenan waxa weeye nolol ma haystaan la dhihi karaa oo markaasi فكان ما حيزا ولي النبي عليه الصلاه والسلام كليه وحو كدغي عنده قوت يومه هذا هيسته مثلا مال marka ila umrigaada oo quutul waxa leeyahay quutul umri ya leeyahay aba quutul umri الغالب aba haysataaba inta 60 sano waxaad ku noolaadaad si jiraysa haysataa waxba kugu tari maysa mar hadii aanan waxa weeye amni iyo ma arahtaya iyo caafimaad hadoo san jiro waxba kugu tari mayso waxa ka raaxo badan midka waxa weeye haysta intaas markuu haysto quutul yawmka haysta quutu yawmi haysta quutul yawmka waxa weeye 24 saac waxaad cuntaad haysataa maxay 24 saac qofka oo zakaatul fitriga markay ku waajibayso 24 saac wax naftiisa iyo wixii nafaqoodu ku waajibtay wax ka faadila inuu heli karaayo markaasa waxa way ku waajibaysaa فكان ما حيزا له الدنيا ورسولك بحذافيرها الدنيا ما الكس idoo la saaka ay kamita marka waxa way bishay min al khawf aw da ilaahi ala idin ku jariba mana huraysi mar haday lama huraan ay tahay maxaa looga gudbaa ilaahi quraanka gadaal ugu sii sheega bishay min al khawf wal juu'i gaajar waa ma haysa gaaja haday timaado wa naqsi min al amwali
maalkoo la iska nuqsaaniyo hadda waxa weeye gaajadaba waxa keenay markii gaajaba ay timida maal intuu xagee yaalaa weeye la dama maal haday sabab cuni lahaydeen ma ogtahay bishay min al-khawf wal-ju'i wa naqs min al-amwal wal-ilaah ila maalku waxa uu nuqsaan ku noqon karaa in aafaad ku dhacdo waata dadka leeyahay wax la yiraahdo biliqa la bartay lama aqoon jiray ereygaas waagi dagaaladu dhaceen oo nin walba maaratay wixii jirriyo hoodan markaas qoryo ina qaateen ay dadkii waxoodi boobayaan markaas ereygaas la soo alifay ee Soomaalidu biliqo hadda qolo walba in ka soo luqada Soomaalidu kala duwan tahay xagga asalka markii la yiraahdo dadka badawdaaw anigu herbaadiyaan kamid ahay si aan loo yaqaana waxa biliqada la yiraahdo markii in la guuro awrta yar harto meel la dego waxa la kala furfuro oo wixii isku aadanay aqalka halkaas ku furan yahay awrka halkaas joogo xoolihi halkaan jiraan reerkan biliqa way wax aali la dhihi jiray macnaheedu wixii baa kala daadsan wixii masalan waa wax kala isku dhagan maahan meeshaas ay horta Soomaalidu biliqada in ka soo luqadka goboladu ay kala duwan tahay laakiin inay saas u badan taan jecelahay saas taasa la dhihi jiray marka hadda tan waxa looga alifay hadda wixii baa la kala daadinayaa oo xoolihi maalka halka halna wuxuu qaadanaya alaabti jiifka uu qaadanaya halna waxa weeye kuraasi buu qaadanaya hal albaabadii uu qaadanaya hal lacagti buu sanduuqi buu jabsanaya waa noociye kale meeshaas ka keeneen dadku laakiin waxay soo shaac baxday waqtigii dagaaladii xumay ay dhaceen ay soo shaac baxday ونقص من الأموال مركز أساسي كميسا ونقص من الأموال والثمرات سمارة مالك أو أنت أسوق نقصانية مالك أما آفاق ونحيسا جائحة آلي هذا مركز إشحتة المال أما هو دبا كعي لما ليسني مالك أسوق بابا أما توقع قاطي أما هو برعة قاضتي توقع يا برعة كواكل الدوي لا باريو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء باب السرقة إيه باب كان كلام توضا مركز قادع طريق إنك صي هل صورة اسكول الجيران هدنا اسكو حقون معها وقال هذا إلهي يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو أساسه إلهي وتقاين قرانك سوته وحوي مد كان قادع طريقة كاس عقوبة العاف كذا وهليا ونقص من الأموال والثمرات ونقص من الأموال والثمرات يقول إلهي سمارتنا هذه ضدك عبس كل عضو لك هذه ضدك بيرالي ده هي بيرها تبع جري حاجه وحكا كينيا سمارت ساد بيريه ما بين هذا دولك بيرها لها جري هذا wax laga hela huwa yari علشان ضدك waxa way maalin walba wadaka waa laga dhacaya waxba laga qaadanaya xoolihi waa laga qaadanaya dad aan tabcan baa soo baxay wixii dhan ka qaadanaya oo qoloba qolo ay isku bedelayso magac kale isku ayagi leeyahay laakiin magaca kala duwan مسوارك ما يصير ندون كمرك اللي جوه ميرا مقعيا لو أقاني جرا ما عنكرا كذا لا هيسا